Asalaamu calaykum asxaabta waxaan inay wadaa vlog aad iyo aad u qurux badan hadaad ka heshaan soo badi way dhihi kartaan inay salaami meelood adduunka ka joogto walaashiina Faatma Cooking and Beauty marka hore channelka subscribe halii saar like comment share intaas waa dhiirigelin waxaan bilaabaa vlog hadaa ka heshaan Faatma vlog noo soo badi dhaca basa saarana hadda waa adiga meel hal saac camal loo soconayo aada magaalo ka baxa waa meel aad iyo aad u qurux badan video waad ka heli doontaan inkastoo laakiin dadaab ka duuba markaa meesha taga bisinka iyo tawaaran dad meesha iska duuduubaya wax ka duuba waa Soomaali dhib badanaa anigan walaahi ma shariirida iska dhici marka soo dhawaa bas weyn aan saaranayo bas weyn aan korma igu dambeys bismillah bas weyn aan koro mar hore igu dambeys 6 sano waa dhantaa u maleeyay marka waa kaas asxaabteyda soo dhawaada meel adduunka ka joogta walaashiina Faatma Cooking baska xitaa way iga sii gadaaday halkaan cake waaye ciyaal yar waxa loo sameeynaa dhalasho laakiin ana xilli habeena wax soo duubay waa kaas soo dhawaada meesha subscribe like comment share meesha dadka isku qabsanaan ka duubi waaye hana duubin hana yeelin hana kileenin baq ayada naftarkooda way isduubayaan aniga meesha quruxdeeda un baa iska duubanayay hada meeshan kuraas aad u qurux badan tiro badan ay yaalo hadaan lamaana tihiin family hadaa tihiin warshir hadaa meesha ku qabsan rabtiin kulli walaahi maasha Allah waad ka wada helaysin marka iyadoo waxay iska duubayeen Snapchat iyo TikTok iyo kii magaca la Instagram iska duubayeen kaaga daran dad oo wax iska aayanba barakeysan un baan dhihi karaa marka halkaas waa dhanka dabaasha dadka way weyn waaye dabaasha oo ilmaha slimming pool maal waaye kana halkan waa kuraastay oo tirada badneed aan sheegay waaye waa ka saa hadda dadka waxa isdhihi kara miiska waxa loogu talagalay dadka oo wax ka shiraayo halkaan waa ka saa dhankaas qolal yar oo qurux badan oo 2 qof ku sheekeysan karto 3 qof ku sheekeysan karto 4 qof ku sheekeysan karto 5 qof ku sheekeysan karto waliba waxay leedahay meel yar oo asagana la seexan karo oo fashion aad u qurux badan hadda meesha inta qadada waaye war meesha caadi ma xitaa waxaa ku yaalo hotel VIP يا ما شاء الله بلان كان صفي عن الضوء لكن next time إن شاء الله مر لبعض عن لونايو صفي عن وصوت ويا هوتيل قروح بعضنا كويالو هكذا dadna way dawaalaan dadna way fiirsanaa meel lagu fiirso la fadhiista xitaa way leedahay meeshan waa meel fani ah weligay xitaa ani marka maalintii ugu horeysay haye qofkii soo arkay aniga yaa layga Faatma yar baadi maanta inta joogi jirta yaa la soo dheeyaa ani maanta igu horeys mar labaad inaan ku laabto soo duubto waa rabaa halkaan way foogi waa liiga daji waay saa u saarna halkaas waa la fadhiistaa war meesha meel shidan waay caadi ma aha saas waay hadda meesha lagu boodbooda meelaha qaar lacag waay intana qof weyn iyo qof yar oo boodboodi karto maasha Allah yaa kuraaska hadda fiir meeshaas keega aan ku cunnay markaas anaga fadhinay keega ku cunnay markaas anaga kac wax duubo sidii wax ku soo duubtay marka saxaabta sharafta badan soo dhawaada meeshiina quruxdaas meeshaas wallahi waa ka helaysiin laakiin hadda xilli habeena wax soo duubay maalin cada inii soo duubaya meeshaas qurux waliba meeshan hadda aan duubayo kaamirada anaa ka iloobay meel adiga waxaa ku taalo oo lugta gaarido kale oo macallinka la fuulayo lagu ciyaar waxaasoo dhan free waaye ma aaminaysin bisinka ani waaye waxaan gabadhii wada gabar saaxiibtay israacno waxaan walaale meelahan oo kale lacag lagu bixiyaa maxaa kaldan meeshan free waaye dawaashaas bis slimming poolkaas bis le lacag bixinaya inta kale free hadda meel waxaa jirta xitaa aad u qurux badan aniga aan ka helay jarjarta waxaa u maleeyaa wax kale inay iga horeeyaan
fadhi iyo waxaa iga hore meel yaroo qurux badan hadan kaaga daro meel kasto fadhi yaalo shaambo lagu dhaqdo iyo tubaa ku taalo cunto hadaa cuntid tiishkana wuu ag yaala war meeshaan waa meel laga taxadiro waayo baa dhihi karaa yaa magaalo ka bixi ku taalaa maxay kugu taalaa magaalada dhan waa dhaafay adna cabaara socone marka soo dhawaada falooga haddaad ka hesheen waxaa dhahdaa Fatma noo soo badi falooga digsigan iyo yaanyadan soo walaaqays naga daa waa soo dhihi karteen ana waan baxaa la waa safara wax lee soo duubaa maanta oo dhan walaahi bilaahi waa kaas hadda qaybtan waa qaybta ilmaha waaye slimming poolka qaybta oo qabayska aan dhahay dabaasha isku dhex dara English Soomaali waa kaasaad dhankaana ka koraysaa u aragtaan qaybta ilmaha waxaa ku yaalo waa meesha wallaahi maasha Allah ilmahaada waa fiirsanay meeshaasa u fadhiisan dalada hoostiisa u fadhiisanay kuraasaa dalada hoosteeda way badan tahay anaa maalin soo buuxinayo full anaa usoo duuba maalin cadaa tegaa laakiin marka dalada hoosteeda u fadhiisanay cunuga biyaha kaama laqay cunuga iyo ilaali ilmo la kortaagnaana ma jirto 3 jir 4 jir 5 jir xitaa meesha ugu dabaalan karaa marka soo dhawaada meesha waa meeshiina hadda waxaan soo gaarnay dhalasho yarna way jirtay ilmo yara dhalasho loo dhigay waa ku soo darsado waxaan kan fiidiyowga ku badsanaya kan alxamdulillah ku qoro waa doorsha hadda macaan badan weyna weynta maasha Allah wallahi lacag yar laga soo bixiyay xitaa islii hadda kan oo kale 2,000 laga qaadaa 2,000 maaha mise 2,500 laga qaadaya dadka soo dhawaada meesha waa meeshiina subscribe-ka like-ka comment-ka share-ka hadda markaan waa duuba markaan waxaa la suri bahalkii. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.